munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore degmada Allay Baday Axmed Aw Ciise iyo gudoomiyaha cusub Kayse Maxamed Ibraahim oo ka dhacday xarunta dawladda hoose Allay Baday ayaa waxa ka soo qayb galay barsaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi cuqaal culamaa u diin macallimiin iyo waxgaradka degmada Allay Baday iyo waliba mas'uuliyiinta nabadgelyada barsaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi oo xilka uu kala wareejinayay labadan mas'uul ayaa waxa uu yiri waxa weeye maaha maanta koow وحوي وحسو جرينا وسلاس الله شيء معلم بني باكوسو كفدي معلم بني باكوسو كفدي نينو كفدي مايو ولا صومريا نيول بس مطبوع يرنايا نيول بمانتو يبي مانتو كتكون بالوقريا إن كستو هذين الصومالي الضحية بالنسبة لنا أي هاي تيرو تهاي نيكم مركو تقال عمانا gudoomiye Yuusuf Ibraahim Geedi mar uu la hadlayay dadweynaha reer Allay Baday ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa Allay Baday waxa lagu yaqaanaa oo aloodu ila joogo xitaa ku aqaanay in degmooyinka calaamad gaar ah ka leedahay oo ay gacantooda wax ku qabsadaan oo isku duuban yihiin oo isku mid yihiin oo ay ayadoo aan cilal biyood iyo riigag midna aan lahayn haddana ay harahooda iyo daamkooda ay wax soo saarka ka soo saareen Yuusuf Ibraahim Geedi waxa kale oo baaq u diray shacbiga reer Oodweyne oo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dooxyada Sacuudi waatan hore ay sheegay waxaan doonayaa team ka soo kaxeeyo oo aan Allay Baday ka bilaabo sida wax u qabsatay sida beeraha u beeratay ay biyaha u qabsatay ya toddoba xaba ku rubado Oodweyne oo aan bada gelin meel ka carro wanaagsan ma jirto waxa kale iyaguna xafladaasi ka hadlay gudoomiyihii hore degmada Allay Baday iyo gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegayay dadka reer Allay Baday waa dad wanaagsan waa dad nabadgelyada jecel oo aad iyo aad u fiican dadku in yar bay leeyihiin dadka reer Allay Baday hawada xisaabiyaan marka adigu hadii aad hadhow markii hore la fadhiday oo aad hawada la xisaabinaysay maanta wala iyaga adiga ku xisaabin doona ولو ولقوا طعيل آب ولا رولوس سلا درتي الويلين هذا فريا وضيال وضح يروح كرد وحن كنتوا يا طعيل قا وسلي مسؤولية القاضي يعني تقبض ويك بطي إنه يقول عيال gabagabadiina barsaabka gobolka Gabiley waxa uu xilka u kala wareejiyay labadan mas'uul Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV degmada Allay Baday